mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland gaar ahaan gudida joogtada ah ee golahaasi ayaa waxa ay golaha hor keeneen gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland waxaanay ka dhageysteen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland warbixin uu kaga warramayo xaaladda adag ee waqti xaadirkan uu dalku ku sugan yahay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland waxa uu ka warbixiyay muddadii yaray ee uu joogay hay'addan waxyaabaha u qabsoomay sidoo kale mudane Faysal Cali Sheekh gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland waxa uu sheegay in dhulka ugu daran ee abaartu saameysay uu yahay dhulka xeebaha ah Saylac ilaa iyo Xiis iyo Maydh waxaana ka mid ahaa hadaladii gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland mudane Faysal Cali Sheekh waxa ay ku beegantay runtii waqti xaalad adag aynu soo maray sida aynu ognahay 4 sanadood ee u dambeeyay dalka waxa ka jiray abaaro joogto ah oo istaba socday oo sanadba sanad runtii uu ka sii daraa sababaha ugu weynina ay ahayd waqtigii guga aynu heli jirnay roobka oo yaraa iyo waqtigii dayrta oo isna sii yaraa iyo waqtiga la yiraahdo in xayska oo dhulka xeebaha ka dawn isna jirin ama wax yari oo meelaha qaar si taaltaala uga daay sababahaas ya dadka oo xamilkoodu uu yar yahay oo xoolahoodu ay sii dhamaadeen intii sii hadhayna ay sanadkan 2018 abaaraha cusub intii ay ku beegantay way ka duwanaanaysaa xaaladeedu marka la eego abaarihii hore waayo waxay dhici jireen iyagoo xoolo haysta ay abaartu dhici jirtay qayb baad xoolaheeda dhiman jiray maanta intii yarayda u hadhay baa ayaa sii dhimanaysa way ka sii adagtaa annagu waajibaadkeygii ahaa in aanu nahay hay'adda qaabilsan in aanu research ku soo sameeyno dalka survey in aanu ku soo sameeyno xaaladeeda aan warbixin buuxda ka bixino ku dhawaaqno abaaraha wuxuu doono deeqaha aanu dadka u weydiino ummadaha ama hay'adaha noqoto ama kuwa islaamaha noqoto ama kuwa caalamiga ha noqdeen iyo dadweynaheennaba iyo dibaddaba runtii annagu hawshaas waanu bilownay markii ugu horeysay hawsha ma bilownay xilka marka la wareegay baa hawsha waanu bilownay haddii aan wax yar ka tilmaamo gobolada dalka runtii waxa ka jira abaar aad iyo aad u ba'an gobolka Awdal oo kale haddaan soo qaato waxa ay saameysay dad ilaa 70,000 oo qof ah ay saameysay oo 6% noqonaya Maroodi Jeex oo kale 7% bay saameysay iyo saaxil isku jira Togdheer 6% weeye gobolka Sanaag 4% weeye inta ay saameysay gobolka Sool waa 6% marka labada gobol baa runtii ugu badan jahahan marka deegaanka aad eegto guud ahaan dalka waxa ay saameysay dad gaadhaya ilaa milyan iyo 800 meelaha qaar waxay noo sheegeen in 2015 bishii December roob ugu dambeeyay dhulkii xeebta oo aad moodo ciidii cadayd ee xeebta ayaa runtii aad uga muuqatay dadku way dhaqmaysnayeen way dhibanaayeen dhulkaasina runtii waa uu ka siman yahay kolka la yiraahdo xeebta meel qurux runtii kuma uu koobna sidoo kale dhulka hawdka la yiraahdo oo ka bilaabma Faraweyne kolka laga bilaabo ilaa ma iyo Sool halka laga geeyo Saaxdheer kolka halka laga geeyo xuduudaas oo dhan kolka la maro intaas oo dhamina balagubadla ku xigsi halkaas laxle ku xigsi soco ilaa ma iyo Saaxdheer halka ka tag buuqoodna ka tag dhulkaas oo dhan kolka aad marto guud ahaan waxa ka jira abaar aad iyo aad u ba'an baa runtii iyagana ka jirta waa Mustafa Ahmed Samakaab wararka STN TV Hargeysa